dhalinyarada Soomaaliyeed oo ciidanka aan digniin uga diro aan tala ka siiyo ninka fadhiya villa Soomaaliya waa madaxweynihii hore oo sharci darro ku jooga meesha oday weyn oo daa oo dalkan waqti dheer soo joogay laakiin soo qaatay xilligiisa yaanu idinka mustaqbalkiina ku ciyaarin yaan lii adeegsanin inaad dadkiina iyo dalkiina dhibaataysaan yaan lii adeegsanin inaad mustaqbalkiina dumisaan yaan laydin soo dirin shacabkiina ka foojignaada mugdiga uu dalka ku wado madaxweynihii hore yaan la idin isticmaalin wax idinka idinku soo noqon doona dhibaatana idin keeni doona wax kasta oo dhaca talaabo walba oo qaadaan qof walba oo dhibaataysaan waa la ogyahay waa qoran tahay duniduna waa idin jeedaa Soomaaliduna waa idin jeedaan waana idinku soo laabanaysaa waxa la soo gaaray waqtiga qof walba oo idin kamid oo dhihi lahaa annaga waxaa naloo dhaariyay dalka difaaciisa ee nalooma dhaarin inaad kursiga sharci darro ku joogto inaan kugu difaacno maalin dhaweed waxaan sheegnay in golaha mustaqbalka Soomaaliyeed uu ka shaqeynayo liisto ay ku xusan yihiin saraakiisha dhibaateeya dhalinyarada shaqadii way socotaa dhalinyaradiina xabsiga ka soo baxay iyo kuwiina la dhibaateeyay wali fursadaad haysataan soo gudbiya magacyada inta aanan banaanka keenin ka hor qof walba qofkii dhibaateeyay ha soo gudbiyo ugu dambeyntii banaan buxu waa xaq dastuuri ah in la banaan baxo waa dawladnimada barkeed waa xorriyadda dalka uu ku fadhiyo qof kasto idin kamid ah waxa laga rabaa inuu ka shaqeeyo abaabulka banaan baxa kuwa la xiray waa kuwa banaanka jooga shacabka Soomaaliyeedna lama wada xiri karo waxa kale oo rabaa dhalinyarada inaan u sheego banaan baxu ma aha kaliya inaad banaanka u soo baxday inaad dad abaabushay inaad adigu banaanka istaagto adduunyada hore u martay qofkii aan soo bixi karin oo ciidan oo albaabka ka xiro telefoonkaada ka soo banaan baxa soo ma aragtaan waa degdeg waa amaano waa fudayd waa hal martaaba oo kaliya ku bixi mushaaraadka shaqaalaha si fudud oo hufan adigoo adeegsanaya tiknoolajiyada casriga ah dahabay altaabasho oo kaliya